waxayna maanta iskuulkan quracdheer waxaanu qaybinaynaa fasalada 8aad ba aad u qaybinaysaa kadibna inta kale wasaaradda u qaybinaysaa waddanka dhan buugaagta wala wada gaarsiinaya buugaagtan markaa waxa way ka kooban yihiin 7 buug oo maadooyinka lagu dhigto dugsiyada hoose dhexe arday kasta reer Soomaaliya oo iskuulka dawladda dhigta buugaas gaari doona ardayda private-ka lama ilaabin laakiin maadaama iyagu ay iskuulada private-ki ka yar duwan yihiin kuwa dawladda ka bilowday markaa insha Allah kuwa private-kana waa la gaarsiin doonaa laakiin kuwa dawladda kor loo soo qaadaya 1 milyan iyo 200 buug waxa ka faa'iideysanaya 103,150 iyo 7 arday baa ka faa'iideysanaya marka buugaagtan waxay gaari doonaan guri kasta madaxweynaha guri kasta waa laga soo duceynaya waajibkaaga waad gudatay wasaaradda waxbarashada waajibkeeda gudatay mudana madaxweyne buugaagtan imika sample baynu halkan ku qaybinanaa oo hordhac u ah barnaamijka maxay ahayd buugaagta ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan kaas oo wasaaradda waxbarashadu tuulo degmo iyo gobol-gobolba u gaarsiin doonto xafladana munaasabadana ay barbilo u tahay buugaagtan madaxweyne 223 arday oo sample aynu siinanaa buug walibana buugaagtan waxay ka kala kooban yihiin 7 buug Soomaali Arabic English xisaab saynis cilmi bulsho iyo maxayday diin buugaagtaas madaxweyne maxayday koobsanayaan waana dadaalkii aad waxbarashada maxayday la garab istaagtay ee adigu maxayday ka hawl gashay sidii buugaagta loo soo iibin lahaa ardaydana qof waliba maxayday buugaagta u heli lahaa maxayday hab bilaasha waan madaxweyne waan kugu hambalyeynaa wasaaradda waxbarashadana hawshaasi maxay ahayd qayb weyn ayay horumarinta cilmiga ka tahay buugagan maanta la idin qaybinayo waxa weeyaan talaabada u horeysay ee lagu hagaajinayo lagu toosinayo waxbarashada dugsiyada dawliga ah madaxweynaha dadaalkaasi sameeyay dhaliish imika uu sheegay ee madaxweynuhu uu lahaa iskuulada dawladda iyo dhakhtarada ayaa la dhaliilaa waa tii aynu kaga baxayna weeyaan awal ma idin haysan ardayna muu haysanin 8 buug oo isu dhan oo mid wal duruustu dhigto mid waliba uu ku jiro ma idin haysan imika waa haysataan ardayna ma laha imika marmarsiyo uu yiraahdo buug ma haystiyo waxaasi ma akhrisan idinka la idinka doonaya markaasi dadaalkaasi dawladda iyo madaxweynuhu ay muujiyeen in mid la mid idinkuna waxbarashadiina ku muujisaan buugaga marka la idin qaybiyo sidooda ku haynaysaan jeexjeexi maysaan waayo arday walba waxa laga rabaa markuu fasalka dhameeyo buugagii inuu soo celiyo si kuwa iminka fasalka 7aad ku jiraana ay u helaan oo ay u qaataan arday walba looga dambeeyo waa ku dadaalaysaan qolooyinkiina boorsooyinka sitaa horta waxaan idinku la talin lahaa qofkii heli karayo buugagu gacanta way ku googaan oo dhididka googooya kuwana way googay haddii aas ay yeeshaan haddii aad samaysataan baaga boorsooyinka lagu rido buugaga kuwa wax ku qorataana way idin dhaqaaloobi kuwana waa ilaalin doontaan waxa weeyaan in ay idinkuna ka soo baxdaan baa la doonaya kaalintaasi ah in waxbarashadiina ay hagaajisaan toosisaan sara u qaataan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.